bahashan la yiraahdo kanaacada nimankaasi ay xaqireen ay yiraahdeen quraanka dhexdiisa maxaa loogu sheegay laha ajaayib waxay leedahay ajaayibkeeda inaynu wax ka soo qaadanaana ama wax ka xusnaana ajaayibka imika laga arkay markii daraasadaha la sameeyay ee qalabkan horumarsan ee mijharada iyo microscope-yada la isticmaalay waxay taasi daliil u tahay icjaaskii xalayto aynu ka soo warabaynay ama mucjisnimadii quraanka ee loo yaqaan al-i'jaaz al-ilmi i'jaazka la xidhiidha xagga cilmiga iyo horumarka quraanku ka sii waramay bani aadamku gadaal ama hadda ay arkeen kanaacadu iyadoo ah xayawaanka yar ee sidaa u yar haddana waxa la ogsoon yahay inay bani aadamkaba ka xoog badan tahayba oo marka u horeysa ay weerar inagu hayso hay'adda caafimaadka adduunka ee munadamatu sixa alcaalamiya waxay soo saaraan sanadkiiba bani aadamka inta ka dhimatay iyo dilkiisa waxa u sababaha maxaa basharkii adduunyadan ku noolaa 7 bilyan kor u dhaafay imise qof baa dhintay maxaa sabab u ah si bal caafimaadka loo horumariyo oo dib loo eego waxaan malaynayaa 2014 meelaha in ahayd taqriiban daraasadii ka dambeeyay ma haynee ayaa waxay soo saareen in tirada dadka ka dhimatay ay kanaacadu ka dishay 750 kun oo qof balka sheekee adduunyada dadka ku nool kanaacadu waxay dishay xayawaanada adduunyada wax dila number 1 kanaacada noqoto xayawaanka adduunyada basharka dilay ee khatarta ku haya kanaacada yar ee leeydi maxaa tusaalaha loogu soo qaatay dad caariday ayaa ka noqotay 750 kun oo qof bay dishay halka bani aadamku dilka iyagu istilayaan uu noqday 437 kun oo qof waa khatartay dadku isku hayeen iyo dadkan caalamka ee hubka sitay ee adarkaysa leedahay kuwa waxba iskaga harin inta kanaacadu dishay ayaa ku soo laabmaysaba way sii wadeenoo waxay yiraahdeen bahalaha aad looga cabsado sida tacaabiinta oo kale maska iyo areesada iyo sunta badan iyagu 100 kun oo qof bay bashar ka dileen sanadka aydan khatarta badan ee miciyaha waaweyn ilaa 35 kun oo qof bay dadka ka dileen tamaasiixda bahalka u ilka weyn wuxuu ilaahay abuuray ee ugu khatar badan waa baalkan ixaaska la yiraahdo kun qof baa ka dilay weeyna sanadka marka halka maxaad ka aragtay bahashii la xaqiray oo lolaha weyn bay yadaaba haysaba khatarta weyn ta wahdishaawada digabayna iyaba waa cajaay dhiiga dadka ka muudsata oo inay waxanta samaysay ku rinto ayaabay taasi sabab u tahayba kuweeda ragga ahi way iska ilka qabow yihiinoo dheecaanka dhirta iyo waxay ka cadaan laakiin tabadigun baa la inagu sameeyay qalabkan daraasada lagu sameeyay markaa mutatawirka ah waxay yiraahdeen waxay dhakada ku leedahay kun indhood wax badan oo la yaabtaad ku arki laakiin awoodii ilaahay bay noo muujinayaan waxaas afkana waxay ku leedahay 48 ilkood inagu intaynu ilkaha leenahay ilkeenu waa misad ma tirisay wali ilkaaga 230 meelahaas way iyadu 48 way wayna dheert waxay leedahay 3 wadne mid qura hadaad adigu leedahay haduu istaago ay ku dhamaanayso iyada 3 wadna isbedelaya waxay leedahay sidoo kale sakaakiin 6 ah ama khartuumkeena yar gafuurka yar waxay ku leedahay 6 mindiyood oo ka khatarsan kuwa dhakhtarku wax ku qalo markuu wax qalayo 3 baal bay leedahay oo dhinac walba 3 baal bay ku leedahay baan leeyahay wuxuu ilaahay awood u siiyay marka ay qofka bani aadamka doonayso inay soo weerarto ur aad u dheer oo qofka bani aadamka dhididkiisa ayay soo urinaysaa iyo kaarboonkan ka soo baxaya waxay ku taqaanaa marka halka inuu qof hurdo waliba inuu hurdo iyo inuu soo jeedana way kala taqaanaa kaarboonka laftiisa ayaa urtaa ku kala garanaysa waxa muzawwada ilaahay uu siiyay shucaac ay ku arkayso qofka jirkiisa oo ay ku garanayso xididada xambaara dhiig meesha ay ku yaalaan ayay ku arki karaysaa wuxuu ilaahay awood u siiyay inay wadato qalab badan oo cusbitaaladan casriga ilmo bani aadam aan haysaninba oo shaybaara marka qofka kolkay u timaado waxay ku garan karaysaa urteeda inuu qofkan yahay mid dhiigiisu wanaagsan yahay isticmaali karayso iyo inuu yahay mid ama xanuunsanaya ama aan dhiigiisu macaanayn waxaad aragtaa qof baa wada seexanaysa adigu caawa kanaacad ka cabanaysa isna wuxuu ku leeyahay kanaacada sheegaysaa maxay ahayd
fayruusaad iyo malaha waxba isaga la socda dhiiggiisoo marka dadku waa ku yidhaa aniga dhiiggaygaa macaano kaneecadu ima dayso iyo aniga dhiiggaygu u qaraadhiyo kaneecada ima taabato markay qofka doonaysa inay durto waxay ku samaynaysaa takhdiirkaas waa maxay qofka marka la qalayo soo lama suuxiyo way ku suuxinaysaa markaasay dhiiggiina taxliil ku samaynaysaa markaasay tamyiicna ku samaynaysaa tamyiicu waa maxay dhiiggu si aanu isu qabsanina dareero uu noqdo meesheedan yara dhuuban mari karaa dawadaana way ku daraysaa markay kaa dhammaysato ayay ku sii daynaysaa horta wixii ay ku raacinaysa bakteeriyadii wixii ay ku raacinaysa sida malaariyadii marka iyadu kaa dhammaysataabay ku sii daynaysa si aanad miskiinkaa iska hawaaraad tahay aan dhiiggii yaraa kaaga daadanin dhiig joojinna way ku raacaysa iyadoo sii dhaqaajinaysaba ayaad adigu meeshii xoqanaysa markaa wixii ay ku shubtay ee ay ku suuxinaysa ayaa markaa bararkan iyo waxaan keenaya way kaa dhammaysatay markaad soo boodaysa aad meeshii ay ku cununayso min cajaa'ib illaahi bay ka mid tahay cajaa'ibteeda waxaa ka mida noocan ilaahda jinsigeedu ilaa 35 qaybood weeye noocyadeeduna ilaa 3000 meelahaasay gaadhaan waxaa aad u la yaab badan cilmiga casriga inta waxa lagu ogaaday ama qalabkan wixii aan shu qabanaynin lagu eego waxay leedahay bay yidhaahdeen xayawaan kale ama xasharaad kale oo ilma qabatiya oo ay xambaarsan tahay taas waa isxambaar marka xasharaad kale dusha ku sidataa wuxuu talo ilaahay ugu raacay ilaahay baa garanaya innagaba imisaynu xambaarsanay qaar baynu dusha ku sidanaa ma aragno qaarna calooshaynu ku sidanaa wataa lagu leeyahay qofka bani aadamka calooshiisa waxa ku jira xataa bakteeriya u baahan yahay oo dheeshiidkiisa ka qayb qaadanaysa Soomaa marka xayawaankaasi ama xasharada yaran microscope kun lagu arkayo way isxambaarayna dusha ku sidataa waxa ay daweysana Allahu a'lam wali lama ogaanin culimada qaar kood baa markaa waxay ku fasireen in waxa ay dusha ku sidataa uu noqon karo fama fawqaha marka macnaheedu waxa weey ilaahay tusaale wuxuu ka dhigayaa bacuudatan kaneeco fama fawqaha iyo waxaan ay dusha ku sidato ilaa wuxuu diidayaa ma jireen lagu fasiro hadii wixii dusha ay ku sidatay la helay oo xasharaadkaas marka idinku xasharaad kaneecadana sheegaysaan arkaysaan kaneecada ilaahay tusaale idin ka dhigaya ka yaray dusha ku sidatana tusaale ka dhigaya almuhim intaasi naga filan xayawaanka la xaqiray awoodiisa uu leeyahay marka waxay dili karaysaa insaankii adduunyada maamulayay waxay dili karaysaa xayawaano badan oo aad u waaweyn marka awoodii ilaahay subxaanahu wa ta'aala aynu ka arkayna kownkan iyo xayawaanada